السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا علم جمانتا أكاديمي halkan waxaan ku soo gudbin doonaa casharaan isugu jira 3 cashar ama 3 luqadood Carabiga, Ingiriiska iyo Axmaariga marka toddobaadkiiba qayb kamid ayaan soo gelin doonaa maanta waxaan ku bilaabanaa conversation 1 baan ku bilaabanaa wada sheekaysi aan ku bilaabanaa casharka koobaad ah wada sheekaysigan sida uu koow inoogu bilaabmay insha Allah waxaan rabnaa ilaa 100 in aan soo gelino 100 cashir in aan soo gelino ayaan rabnaa marka 100 cashir aan soo gelin doono kani wuxuu noqon doonaa mid kamida waa casharaan si gaar ah u soo xulay insha Allah ta'ala marka cilmiga maanta academy ayaad ku soo dhawaanaysaan Axmaari Ingiriisiga Carabi luqad saxaafadii takalamkii iyo dhamaan qaybiheedii kala duwaneed insha Allah iyadana waan soo gelin doonaa marka maanta waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah ta'ala conversation 1 wada sheekaysiga koobaad oo mowduucan wuxuu ka hadli doonaa siyaasad iyo siyaasadda Soomaaliya soo aragto iyo sida ay ula muuqato ka hadli doonaa insha Allah ta'ala marka welcome ku soo dhawaada cilmiga maanta academy waana cashirkii koobaad ama muuqaalkii koobaad ee page-kana YouTube soo gelin doono insha Allah ta'ala markaad qiimeyso qaab sharaxaad iyo casharaanta ayaanu ka rabnaa ka bacdiina adna wixii noo qudasa insha Allah ta'ala wa macallin Mustafa idin la ku soo dhawaada cashirka koobaad aan soo gelin doono page-kana YouTube cashirku wuxuu ku bilaabanayaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore af Ingiriisi aan ku akhri doonaa marka dambana waa macnayn doonaa conversation 1a As you know, Somali people fond of policy because people discuss policy everywhere. Then, what is your attitude towards policy and political address? Frankly speaking, I am fond of talking about policy because it concerns our life, it touches on every aspect of our life. Policy directly concerns to our economy, our way of thinking, our future and people. I see policy as important. I have different idea which is wholly different from your opinion. I am totally against the policy because the policy is a dirty game. It is a full of lies and deceptions and political leaders are doing their own jobs. Inshallah ta'ala waxaan isku daynaa in aan macnayno wuxuu yiri as you know sida aan wada ogsoonahay ama sida aad ka war haysaan Somali people dadka Soomaalida fond of waxay ka helaan policy siyaasadda ayay ka helaan oo ka yar iyo ka weynba adduunku waxa inta kursi fadhiisto koob shaad dalbado siyaasad ka shaqeeyay anaga Reer Cabdiraxmaan Soomaali baa la hayaa as you know sad wada ogsoontii Somali people dadka Soomaalida fond of waxay ka helaan policy siyaasadda ay ka helaan because maxaa yeelay people dadku discuss waxa ay ka doodaan policy siyaasadda ay waxay kaga doodaan everywhere goob kasta ama meel kasta ay joogan haday meherad joogan meel kasta ay joogan way ka shaqeynayaan siyaasadda then inta ka bacdi what is your attitude towards waa maxay adiga doorka kaaga aadan policy siyaasadda and political leaders iyo hogaamiyaasha siyaasadda hal mar ku cilna as you know sida wada ogsoontiin Somali people dadka Soomaalida fond of waxay ka helaan policy siyaasadda because maxaa yeelay people dadku discuss policy siyaasadda ayaa waxay kaga doodaan everywhere goob kasta ama meel kasta then inta kadib what is your attitude towards waa maxay adiga doorka kaaga aadan policy siyaasadda and political leaders iyo hogaamiyaasha siyaasadda waa maxay adiga doorka kaaga aadan b jawaabtu waxay noqotay frankly speaking hadii aan si daacad uga hadlo macnaha ona Reer Cabdiraxmaanka aan ahay aan raacin frankly speaking si daacad uga hadlo I am fond of waxaan anigu ka helaa talking about policy in aan siyaasadda falaqeeyo ama aan ka hadlo because maxaa yeelay it concerns waxa ay khusaysaa our life nolosheena it touches waxa ay taabataa on every aspect dhan kasta of our life oo nolosheena policy siyaasaddu directly concerns si cadba waxay u khusaysaa to our economy dhaqaalaheena our way of thinking fikirkeena our future mustaqbalkeena and people iyo dadkeena I see anigu waxaan u arkaa policy siyaasadda
as important baanu arkaa buu mid muhiima baanu arkaa buu marka door muhiima ayaanu arkaa buu frankly speaking si daacada hadii aanu hadlo I am fond of talking about policy waxaan jecelahay inaan ka hadlo siyaasadda because maxaa yeelay it concerns waxay khusaysaa our life nolosheena it touches on every aspect waxay dhan kasta ka taabataa our life nolosheena policy siyaasaddu directly concerns si cad baa waxay u khusaysaa to our economy dhaqaalaheena our way of thinking ha fikirkeena qaabkan aanu fikirayna siyaasadda khusaysa our future mustaqbalkeena and people iyo dadkaba mid khusaysa ayaanu arkaa buu si daacada hadaanu hadlo anigu I see policy waxaan u arkaa as important mid laga maarmaan aan arkaa buu haye jawaabtu isna ka bixiyay muxuu yahay qofkan kale jawaabtu ka bixiyay isna waxay noqonaysaa wuxuu yiri anigu eedan macnaha faham ingiriisiga macsharaanta waxaan ugu talagalay qof A iyo B iyo intan iyo base oo saka dhisana ma kala garanaya waxaan soo qaabka u socdo marka A iyo B wax macnaha ma sameynayso marka wuxuu yiri I have different idea anigu waxaan ka haystaa fikrad which is totally different from taasoo gabi ahaanba ka duwan your opinion fikirkaaga I am anigu totally gabi ahaanba against waxaan ka soo horjeedaa the policy siyaasadda because maxaa yeelay the policy siyaasaddu wili is a dirty game waa deel wasakh ah macnaa ciyaar wasakh oo waa gudaafad buu gabigeeduba it is a full of lies waa been made up ninkan been sheegay ana wadada dhisi doona gidaarkaasaan cadaan iyo madow ka dhigi haddaad doorata ninkan been sheegay siyaasadda waa nothing lama dhigsan karayo ka dhigata macnaa a dirty game waa gudaafad buu is full of lies waa wada been buu tani been baad saa u qurqurnaysaa and deception is iyo been abuurs kaaga daran waxa beenta waa halkii la oran jiray al-kadhib ikhtiraa'un was-sidq mawjuudun bay tiraahdaa arabtu waxay yiraahdaan runtu halkeeda ay joogtaa laakiin beenta waa la ikhtiraacaa adaa samaysanaya marka beenna damacada sheegto waad samaysanaysaa marka waa sidoo kale and deception is waa been abuuris marka adaa samaysanaya and political leaders hogaamiyaasha siyaasaduna are doing waxay qabsanayaan their own jobs shaqooyinkooda bay qabsanayaan nin walba dintiisa uu wataa mooyee fadhi ku dirka cid adii wax ku soo kordhinaysa malaha buu yiri marka halkaasan kan sharaxaad ka baxay waxa ku soo hadhay qaybtan buluugi maxay tahay casharka meelahan ku jira in buluuga calaamada buluuga ama kalarka aan saaray waa erayada aad kala bixi doonto casharka fond of waa ka helid kala bax inta buug meel ku qorato kala bax fond of ka helid baad ku qornaysaa policy waa siyaasad discuss policy discuss waa dood policy waa siyaasad political leaders hogaamiyaasha siyaasadda leaders waa hogaamiyaal halka ay ka dhigo waliba leaders waa hogaamiyaal frankly speaking si daacada concerns waa khusayn touches waxay taabataa on every aspect dhan kasta directly si cad economy waa dhaqaale thinking waa fikir our way of thinking ha fikirkeena future waa mustaqbalka different idea fikrad aad hayso ka duwan hooli gabi ahaanba a dirty game waa ciyaar gudaafada a full of lies been made deception is been abuur jobs waa shaqooyin insha Allah taala halkaas aynu ku joojinaa casharka sharaxaadiisa wuxuu noqon doonaa casharka koobaad ee soo gelino page-keenan casharka koobaad ee wuxuu noqon doonaa 9 cashir oo hadhay ayuu koow ka noqon doonaa waana soo gelinaa insha Allah taala والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.